munaasabad si heersare loo soo agaasimay isla mar ahaantaasna lagu weyneynayay calanka beelweynta Surre ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Munaasabadan ayaa waxaa soo agaasimay siyaasiyad Xamiid Sheekh Axmed oo ah hoggaanka guud ee qowmiyadda Tireed iyo horjoogaha samata bixinta iyo badbaadada beelweynta Surre. qabanqaabada iyo isku dabareedka munaasabadda waxaa lahaa Gudoomiye Canab Cilmi, taasoo suurtagelisay in xafladdu ay u dhacdo si nidaamsan oo aad u qurux badan. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin, siyaasiyiin, aqoon-yahano, waxgarad, fanaaniyiin, dhalinyaro, haween iyo jaaliyado ka kala yimid gudaha dalka iyo dibaddiisa. intii munaasabadda ay socotay, qaar ka mid ah madaxdii iyo mas'uuliyiintii dadweynihii kala gadisanaa oo goobta ka hadlay ayaa aad u bogaadiyey Gudoomiye Xamiidi iyo tiimkeeda sida habsamida leh ee ay u qabteen munaasabadan qiimaha badan. waxaan si gaar u salaamayaa gabadheena qiimaha badan oo aan rajaynaya xafladan la'aanteed inaanay suurto gasheen. dadka intooda badanna martiqaadka u fadhiisa ama dhammaantaan aan oran karno Gudoomiye Xamiida Sheekh Axmed. dhammaan waxaan filayaa xafladan waxaa qayb ka ah deegaanada kala duwan ee lagaga hadlo afka Soomaaliga mise dadka Soomaaliyeed ama andhaha shantii Soomaaliyeedba caawa waa ku dhan yihiin halkan. dhammaantiin waa mahadsantihiin. xaq baa laynoogu leeyahay inaan la wadaagno farxadda iyo rayraynta beelweynta Surre, Mahadir, Ajiir Samaale. allaha barakeeyo. si fiican oo wanaagsan ayaa xafladiina u soo camirteen. waxaan idin leenahay guul iyo gobonnimo, garabkeenna allaha galo. waxaan idinla wadaagnaa farxadda, rayraynta iyo wanaagga aad jeceshihiin inaa dhexdiinna iyo deegaamadiinna aad la tagtaan. ugu dambayn waxaan leeyahay isku duubni iyo midnimo ayaa wax lagu gaadhaa. isku duubnaada, midooba, wax wada qabsada. deegaanadiinna ha ilaawina, duub ha loogu laabto. waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo biyahooda dhammaan ha laga warhayo. idinkuna waa mahadsantihiin. salaamu calaykum. Xamiido Sheekh Axmed wasiiradeenna oo gudoomiyaheenna noo soo abaabulshay, sanad kastana noo soo abaabulsha xafladeenna sanad guurada. maasha allah, kor allah ka dhigo gabadheenna Soomaaliyeed. maasha allah, tabarkala ummadda Soomaaliyeed, madaxda maqaanka gabdhaheenna sharafta leh, shanta Soomaaliyeed, dirweyn oo dhan iyo Soomaali, shanta Soomaaliyeedba walaalo waan idin salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad baan ugu mahad celinayaa qabanqaabayaasha iyo xafladan dadka ka soo shaqeeyey ayaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa. waxaan bogaadinayaa xafladan qiimaha leh ee Surre ayaan bogaadinayaa. inta ka soo qayb gashayna waan bogaadinayaa. inta diyaariday oo walaasheen ay u weyn tahay, xamse ay u weyn tahay, Xamiid ay u weyn tahay ayaan bogaadinayaa. waxaan ku bishaaraynayaa inay xafladani meelo badan ay ka dhacday. adinkuna aad caawa qaybtiina aad ka qaadanaysaan. xafladahan oo kalena ay meel walba ka dhacayaan. xafladda Surre ay meel walba ka dhacayso. waxaan bogaadinayaa dhammaan kaamiraamayaasha. waxaan bogaadinayaa dhammaan qabanqaabayaasha. marka sharafta halkan isku imaatay beesha Surre. time korona waan ka soo qayb galay, timekan waan ka soo qayb galay. insha Allah hadduu Ilaahay gaarsiino timeka dambe inaan ka soo qayb galay ayaan jeclahay. dad aad sharaf u leh, aan dad walaalo aan ahana animkiisa ay qabiil, laakiin waxaan ka soo jeedaa beesha Koonfur Galbeed. waxaan leeyahay Surre Soomaali sababtoo ah maamul ay ku jirin Surre. xafladan quruxda badanna waxaa soo qaban qaabisay walaasheena Xamiido Sheekh. mideeda kalena hadalka iskuma fiicnin. waxaan leenahay dhalinyarada oo meeshaan ka soo qayb gashay beesha Surre
iyo midnimo oo la afdam waxaa leeyahay soo dhawaada suro dhawaan salaamaya Soomaali Maxamed oo dhawaan salaamaya Ilaahay waxaan ka baryaa inuu wadankeena xal ka dhigo Soomaaliya waxaan leeyahay qurbaan ku daalnay waa ku duqownay ma fahanteen marka waxaan dhihi lahaa israaca wadankiina u tashta saasa indha cadow iyo inaga faa'iideysanin ugu mahadceliyo xildhibaanad Mrs. Hamida dhaantada oo loo horeysan ay halkan ka maqli doontaan oo dad fara badan ay ku magacaaban yihiin oo beesha ay ku magacaaban tahay deegaanada ay ku magacaaban yihiin oo wada maqli doontaan insha Allah si fiican inaad uga boqotaan aan rajaynayo dir waa ummadda maxaan ku raday Soomaali oo dhan ay ka soo farcantay cid ay garanaysay cid aan garanayninba waxaan idin leeyahay hambalyo sanadkii ugu horeeyay ma aha waa sanadkii labaad oo ka soo qayb galaayo marwada sharafta badan qiimaha badan gudoomiyaha sharafta badan qiimaha badan ee gabdhaha ka soocan Xamiida ayaa ka dambeysay arrintan in la isku imaado beeraha direedo waxa idin leeyahay Xamiida gacan ku haya ka laga waraya Xamiido digili mirifle Soomaali oo dhashanta Soomaaliyeed isku haysaa alfad kastoo qabatana laguma kala haro waa ku dhannahay marka waxa idin leeyahay hambalyo mar koowaad mar labaad hambalyo mar saddexaad hambalyo galweynta Sure waxaan leeyahay Sure hambalyo Sure waxaa lagu yaqaanaa dowladda meel walba ugu degaa laakiin aniga waxaan ugu saameynaa koonfur galbeed degnaa marka waxaan leenahay madaxdeena Xamiidana waa salaamaya ayadaa soo qaban qaabisay xafladan oo aad u qurux badan waxaan leeyahay Xamiid oo jir oo joog sanad walba iyo waqti walba caafimaad iyo nolol fiican ku noolaaw hambalyo beesha Sure waa islaaminaad ugu dambeyn siyaasiyad Xamiid Sheekh Axmed ayaa goobta ka jeedisay khudbad dhinacyo badan taabanaysay taas oo ka tarjumaysay qiimaha iyo muhiimadda ay leedahay midnimada iyo horumarka beelweynta Sure madaxdii mas'uuliyiintii ka soo qayb galay waa u mahadcelinayaa waxaan halkaan aniga aan u soo safray inaan 2025 September xafladii Sure aan ku qabtay Nairobi anigoo sidoo kale aan qabanqaabadii iyo howlgalkii tii muqdisho xala ka dhacdayna ka dambeeyey sidoo kalena bisha shantaada ee loogu dhici doonto degmooyin kala duwan sida Soomaaliya maamul goboleedadeeda beerdhabo marka sidoo kale wadanka South Africa iyo Johannesburg waa ka dhici doona iyadana Sure waa inuu magaciisa kor oo tagaa Sure waa inuu magaciisa kor tagaa waa in karaamadiisa iyo masiirada Sure qof walba oo ku aftirsan Sure inuu mas'uuliyad iska saaro hal qof kaliya ma ahin midnimada ku doorinaya dhalinyarada Sure ee halkan xafladan quruxda badan ee soo qaybqaabiyay waxaan leeyahay isku xirnaada yaysan noqonin sanadkan halka mar la isku imaanay xafladda Sure yaysan noqonin Sure surgooye ruushkii Soomaaliya Nairobi hal mar ugu deeq waay laba hore caawa ku dhigtay kooda September Sure waxaa yaa kutubin caawa waxaa taariikh ayaa taariikh baaldahab ayaa Sure u gashay wadanka Kenya gaar ahaan magaala madaxda Nairobi in Sure hal howl u deeqi waayey laba howl caawa lagu dhigay xafladaas taas waxay noo tahay ammaan weyn noo tahay Kenya waxaa u malaynaynaa inaa hadda anaga iskala adhiin karno Sure haddaan markaas halkaa ugu baxo arrintaas aad ii farxad gelisay runtii labadan xaflad oo caawa hal habeen yani 1 September 2025 taariikhda gashay markaa halkaas ugu baxo waxaan rabaa inaan hal dardaaran aan hadalkayga ku soo xiro dardaarankaas oo ah midnimo Sure Sure in mar walba la garab istaago siyaasiyiinta Sure ay dhalinyarada garab istaagaan ganacsatada Sure inay dhalinyarada garab istaagaan maxay ahaato oo dhaqameedyada inay dhalinyarada Sure garab istaagaan arrimahoodana faraha ay uga qaadaan oo dhaqameed shaqo kuma laha oo dhaqameed Sure
shaqo uu ku leeyahay malaha inuu dhalinyarada arrimahooda oo hoos u galo isaga wuxuu waajib ugu tahay inuu ku support gareeyo wixii wanaag ah wixii midnimo ah wixii horumar ah laakiin in iyaga uu kala qaybiyo mas-uuliyaddiisa ma ahayn shaqadiisana ma ahayn halkaasna waa ku cambaareynaya weliba cod dheer aan ku cambaareynaya oda dhaqameedyada hadday yihiin oda dhaqameedyada kenya iyo hadday yihiin oda dhaqameedyada soomaaliya waxaan leeyahay dhalinyarada iyaga isku daaya iyagaa masiirtooda ka fikiraya iyagaa mustaqbalka maxaa sura ah iyagaa qorax soo baxaysa ah marka odayaalaha qoraxda dhacaysa ah waxaan leeyahay dhalinyaradan ha ka joojiyaan in ay kala qaybiyaan inay jufajufeeyaan suro waayo sura waa xal sura laga badan sura madeeqa sura laga filan idriis maxamed xasan dahab TV muqdisho.